السلام عليكم. kusoo dhawaada taxanaheeni ma og tahay qaybtiisii shanaad aniga walaalkiin Cabdimajiid kusoo dhawow. ma og tahay in raggu ay xidhan jireen kabaha cidhibta dhaadheer leh intii lagu guda jiray qarnigii 18aad. ma og tahay in xidhashada headphoneska ama xadhiga dhagaha la geliyo hal saac ay kordhiso bakteeriyada ku guda jirta dhagahaaga 700 oo jeer. ma og tahay in maalinka qura ee meeraha Phoenix ay ka xilli dheer tahay sanadka caadiga ee dhulka. ma og tahay in ruuxa bini'aadamka indhihiisu aynan samaynin wax koritaan ah laga soo bilaabo dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa halka ay dhagaha iyo sanku ay sii wataan koritaankooda. ma og tahay kalluunka afka qalaad lagu dhaho dolphinka ama hombarada ay seexato labadeeda indhood iyadoo mid kala haysa. ma og tahay in lafdhabarta ruuxa labka ahi ama ragga ahi ay dhererkeedu gaadhayso 45 sentimitir ruuxa dumarka ahna ay gaadhayso 43 sentimitir. ma og tahay in atomic bombkii ugu horreeyay intii lagu guda jiray dagaal weynihii labaad ee adduunka uu sameeyay Mareykan kuna tijaabiyay magaalada Hiroshima ee ku taala dalka Japan. ma og tahay in shirkadaha ugu caansan ee adduunka badankoodu yihiin shirkado ka soo jeeda dalka Japan sida Toyota, Suzuki iyo Honda. ma og tahay in eygu uu yahay xayawaankii u horreeyay ee loo diro hawada sare. ma og tahay in malabku aanu xumaanayn haddii uu yaalo waqti aad u dheer. ma og tahay ahraamta waaweyn ee Giza ee ku yaala dalka Masar ay ka mid yihiin cajaa'ibta 7 ah ee adduunka taala. ma og tahay in ereyga almaa ama biyaha lagu xusay Quraanka Kariimka ah 23 jeer.